إنا لله وإنا إليه راجعون. سود هذا إن شاء الله بدنا كريم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سود هذا إن شاء الله بدنا كريم. نص شهر قبل نمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالشيء الصومالية شرفتي قيمة هي قدرتها مدن أدبانية. السلام يا إنا لله وإنا لله راجعون. إنا لله وإنا لله راجعون. كل نفس ذائقة الموت. إلهي هون حريستو أنت كل ما تي قرحي كسمايا كدعي مقالة كسمايو مدفر بدن قرح كمان أنا أرق meelaha qudhaatay ma garanaysaa aanu yacnihi inta faraha badan anaan qarax ku arki jirin bay ahayd, laakiin masiibadii ummadda Soomaaliyeed haysatay, masiibadii ma garanaysaa Muqdisho iyo qaraxii Soobe iyo balaayadii haysatay yaa maanta u diyaargarowtay magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo dad fara badan ayaa dhintay, dhaawac fara badan ayaa jira, musharaxiin waxaa jira dhaawaca oo hadda yacnihi rabeen inay isku sharaxaan doorashada dhici doonta bisha 8 sanadkan. xildhibaano dhintay iyo kuwa dhaawacaa jira, kuwa ilaahay badbaadiyay baa jira, wariyaal fara badan baa dhintay. wariyaasha dhintay waxaan ka xusi karnaa dhowr. sidaasay tahay inna lillahi wa inna lillahi raaji'un. inna lillahi wa inna lillahi raaji'un. ilaahay ha u naxariisto dhammaan intii ku dhimatay halkaas qaraxaas wuxuushnimada leh ee cadowtinimada ah ee Soomaali baabi'inta ah ee bahdilka ah ee aakhiri adduunka ba cidii geysatay ilaahay uu ku duleeyay ee magaalada Kismaayo ka dhacay. waxaan leenahay intii ku dhimatay ilaahay naxariistii jannaha siiyo, aakharana ilaahay ha u naxariisto, adduunkana intii ay ka tageen samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo. adduunka waxay kaga tageen ehelo Soomaali oo dhan, qaraabo, ciyaal, nooc kasta oo ay kaga tageen ilaahay ha u naxariisto, ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. intii ay ma garanaysaa iyagana intii dhimatay ilaahay u naxariis. inta kadib qaraxa dhowr qof yaan hadda in ka magacaabi karaa oo ku dhintay. wariye hodan naaleeye oo rekanada ahayd iyo saygeedii oo wasiir hore ka ahaa Jubbaland way dhinteen, Allah u naxariista labadaba. wariye hodan naaleeye waxay ahayd gabadh xuquuqda aadamaha u dooda, gabadh waxay ahayd hadii rabbi ku roon yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u siman tahay. waxaa kale oo isaguna meesha ku dhintay wariye gacma dheere, maxamed gacma dheere isaguna meesha ku dhintay, ilaahay naxariista janna isagana ilaahay siiyo. waxaa kale oo dhintay hadii rabbi ku roon yahay oo isaguna meesha ku dhintay inay cigaal shidaad, Allah u naxariista isagana. dad fara badan ayaa dhintay. waxaa kale oo dhaawacmay hadii rabbi ku roon yahay musharaxiinta qaar ayaa dhaawacmay. xabad hadda Kismaayo la hadlay saacaddan hadda aan telefoon hadda saadan soo galay ka hor baan Kismaayo la hadlay. wali xabadu way socotaa, wali xabad ayaa ka socota meeshii, dagaal baa wali meesha ka socda, waxyaalo fara badan baa ka socda. wali yacni xaqiiqda dhabta lama ogaanin, wali xabadu way socotaa meeshana wali laguma kala guuleysan. hadda daqiiqadan la hadlay wixii ka soo kordha insha Allah bismillaah kariim dib ayaan kala socodsiin doonaa barnaamijyadeena dambe. wixii ka dambeeyayna waxba yaan la siyaasadeyn oo Axmed baa ka dambeeyay iyo Soomaaliya iyo dawladda farmaajo kadib waraxaasi koox waxaa jirta cadow oo qaraxa quudataa jirtay. wax yaan la siyaasadeyn qaraxeen wuxuu ka yimaadaa al-shabaab argagixiso ugus buu ka yimaadaa. ugus waxaa ka faa'iideysanaysaa doorashooyinka Jubbaland ayay ka faa'iideysanaysaa iyo halka howlaha iskugu yimid. insha Allah bismillaah kariim qaraxa howluhu sida sababta keentay, sababta daciifisay xoogagii amniga ee Jubbaland,
sababtay u suurto gashay maanta qaraxan inuu dhaco oo weliba tara ku dhaco meelay baarlamaanku ka shirayeen waxaan gadaal ayaynu ka falanqayn doonaa laakiin hadda waxaan usoo galay oo besa tacsi guud inaan u diro ummadda soomaaliyeed tacsi guud waxaan u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaa kaloo tacsi guud u dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo familigii ay ka baxeen dadka dhintay allaha u naxariista iyagana naxariistii janna allaha siiyo ehelkii qaraabada ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo tacsidaa guud baan u dirayaa weriya hodan naaleeye weriya gacma dheere gacma iyo ina cigaal shidaad dhammaantood ilaahay u naxariistay intii kale ku dhimatayba xildhibaanada ama seenoo musharaxiinta dhaawacaana ilaahay hawbooga dhaya ayaan leenahay barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynaynaa xabadiina weli way socotaa haddaan aan warbixinta ugu dambeeya inla wadaago hadda hal daqiiqa ka hor yaan la hadlayay kismaayo xabadii weli meeshii waxaa ka taagan qarax iyo xabad iyo waxbaa ka socoto weli laguma kala bixin weli wax lagu kala baxay ma jirto cadowgeenu laakiin baasha dhexdeena iyo inaan ka bilaabin cadowgeenu waa argagixisada nimanka ugus ah ee balaayada iyo shisheeyuhu soo kalkaaliyeen weeyaan ma aha inaynu yacnihii waxyaala hoose iyo soomaaliya hal cadow baa ka jira cadowgaasina waa argagixisada insha allah bidillah kariim waynu falanqayn doonaa barnaamijkaas hadda laakiin tacsidaa guud maan usoo galay iyo inaan update-ka u dambeeya in la wadaago dadka dhintayna tiradooda oo yacnihi saxa waan la wadaagi doonaa insha allah bidillah kariim weriya hodanna ilaahay naxariis janna ha siiyo ilaahay naxariis janna ha siiyo weriya gacma ilaahay naxariis janna ha siiyo dhammaantiin waan islaamayaa iyo inta kale ku dhimatayba dhammaantiin